taariikhdu markii ay ahayd 17 February sanadkii 2022 gabadhan lagu magacaabo Britney Griner ayaa ka soo degtay airport u dhow magaalada Moscow ee dalka Ruushka. gabadhan ayaa ka tirsanayd naadiga Phoenix Mercury ee kubadda kolayga dumarka ee Mareykanka. sidoo kale waxay u soo ciyaaraysay 7 xilli ciyaareed ugu dambeeyay naadi Ruushka, balse markay sidaa u soo gaadhay dhanka amniga ee airportka, ciidamada ammaanka ayaa istaajiyay. markii shandadeeda ay baadheenna waxay ka heleen daroogo. kadib xabsiga ayaa loo taxaabay, waxaana lagu xukumay 9 sano oo kiis daroogo ah. haddaba gabadhan Ruushku kaliya uma xidhin inay sharciga jebisay, laakiin waxaa loo xidhay maadaama oo meel u jirta Ruushka 7,000 kiiloomitir uu ku xidhan yahay nin ku caanbaxay ka ganacsiga hubka oo u dhashay dalka Ruushka. madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin wuxuu rabaa in gabadhan imika uu xidhay uu ku soo bedesho ninkan ka xidhan. sanadadii u dambeeyay tirada dadka Mareykanka ee lagu xidhay meel ka baxsan Mareykanku cirka ay isku shareertay. qaar badan oo kamida dadkaasna Ruushka ayaa xidhay. dadka la xidhay waxay iskugu jiraan wariyayaal, mucaarid iyo sidoo kale dalxiisayaal caadi ah. laakiin marka loo eego Putin, dadkan maxaabiista ahi waa hub uu adeegsanayo si uu ugu qasbo Mareykanka ku bedelashada dad isaga u muhiima. sida muuqatana arrintan ilaa imka way u shaqaynaysaa. haddaba siday macquul u tahay qabashada maxaabiistani, gaar ahaanna muxuu Putin u afduubanayaa dadkan Mareykanka? Mareykanku si diyaar ma u yahay inuu soo daayo maxaabiistan Ruushku haysto? su'aalahaasoo dhan waxaynu kaga jawaabi doonaa muuqaalkan. haddaba haddii markii ugu horeysa aadna daawanaysa ay tahay, fadlan subscribe-ta noo saar. sidoo kale muuqaalkanna like-ta saara aad ayay muhiim noogu tahay. tobanaankii sano ee u dambeeyay xeerka Mareykanka uga yaala maxaabiistu wuxuu ahaa mid cad oo ah in aanay wax wada hadal la furin dowladda maxaabiista Mareykanka ka haysta. xeerkan oo la sameeyay 1973 markii kooxda reer Falastiin ee lagu magacaabo September Tamadow afduubteen 2 diblomaasi oo Mareykan ah, iyagoo dalbanaya in Mareykanku fasaxo oo sii daayo boqolaal maxaabiis oo laga haysto. laakiin madaxweynihii waqtigaas ee Mareykanka ee Nixon ayaa sheegay haddii la aqbalo dalabkooda inay ku dayan karaan kooxo kale oo xag jira oo argagixisa ah oo iyaguna dad afduuban doona si loogu sii daayo maxaabiistooda. sidaa darteed uu diiday. 2 diblomaasina kooxdii haysatay way u dhamaysay oo way dileen. intaa kadibna siyaasadda Mareykanka ee maxaabiistu waxay noqotay inaan laga ag wareegin qofka la afduubta ee Mareykanka. laakiin mararka qaar oo tallaabo laga qaaday dadka la afduubta way jirtay. tusaale ahaan, haddii nin sirdoona oo Mareykan la qabsado, Mareykanku wuxuu ku soo bedelan jiray sirdoon kale oo uu haysto, sida dhacday sanadkii 1962 markaas oo Mareykanku sii daayay nin Soviet oo sirdoona, halka Sovietku iyaguna ay soo daayeen nin CIA-da pilot u ahaa. sidoo kale mararka qaar dowladda wax afduubatay ayay eegaan Mareykanku, oo tusaale ahaan madaxweynihii Mareykanka ee Jimmy Carter ayaa cunaqabataynta ka qaaday Iran si uu u soo daayo maxaabiis laga haystay. iyo sidoo kale Ronald Reagan oo ku bedeshay sirdoon Soviet ah si uu u soo daayo wariye Mareykan ah. sababtoo ah kiiska labadan wadanba Mareykanka ayaa ku qasbanaaday inuu wada hadal la sameeyo, waayo haddii maxaabiis laga haysto Mareykanka, aqalka cadaadis ayay ku saaraan shacabku, halka wadamadaas aynu soo sheegnay iyaga nidaamyo kaligii talisa ay haysteen, intay doonaanna way sugi karayeen ilaa Mareykanku tallaabo qaado. Mareykanku badanka wax wada hadal lama furi jirin dadka maxaabiista ka haysta mararka qaar mooyee ilaa 2010 laga soo gaadhayay markan oo ururka ISIS ay afduubteen dhowr qof oo Mareykan ah. Barack Obama oo madaxweyne ahaana uu diiday in wada hadal lala furo, laakiin kadib markii ISIS ay dishay dhowr ka mid ah maxaabiistaas Mareykanka, qoysaskooda ayaa bilaabay inay hadlaan, dowladda Mareykankana cadaadis ku saaraan. intaa kadibna Obama ayaa magacaabay wakiil gaar ah si uu la kulmo qoysaska dadkooda la afduubtay, waxaanu ku dhawaaqay wax ka bedel yar oo quseeya arrimaha maxaabiista. The United States government will not make concessions, such as paying ransom, to terrorist groups holding American hostages. At the same time, our policy does not prevent communication with hostage takers by our government, the families of hostages, or third parties who help. gaar ahaana Obama wuxuu yara fududeeyay xeerkii hore ee ahaa inaan wax wada hadal la furi karin afduubayaasha. sidoo kalena wuu sii dardargeliyay xeerkan isagoo heshiis la galay dowladaha Kuuba, Iran iyo ururka Taliban si uu maxaabiis uga soo daayo. sidoo kale Donald Trump ayaa isaguna sii waday, iyadoo wada hadaladuna iyo fikradaha lagu soo daynaya maxaabiistu ka imanayeen qoysaska dadka la haysto, waxayna la wadaagayeen wakiilada loo magacaabay. markaas ayay wada hadaladu bilaabmayeen. haddaba dad badan arrintan waxay u arkeen in ugu dambeyn Mareykanku samaynayo wixii saxda ahaa, balse waxa dhacay wixii laga baqayay, oo arrintii waxay dhiirigelisay in la afduubto dad badan oo kale oo Mareykan ah. sida riboodkan ina tusayana, dadka Mareykanka ah
ee lagu xidhay meel ka baxsan Mareykanku inay aad u korodhay sanadkii 2011. dadkan la xidhanayna may qabsanayn argagixiso, laakiin badanka waxa xidhayay dowladaha jaaniba. dowladaha hogaaminayay dadkan Mareykanka ee la xidhayayna waxa ugu horeeyay Ruushka iyo madaxweynihiisa Putin. oo 2018 booliska Ruushka waxay xidheen dalxiisa Mareykana. ninkan la xidhay ayaa waqtigan Ruushka u joogay aroos markii ay ciidamada Ruushka ee sirdoonka ahi ay xidheen iyagoo ku eedeeyay inuu ahaa basaase Mareykana. kadibna maxkamad ayaa ku xukuntay 16 sano oo jaajuusnimo ah. ninkan wax cadayna oo lagu hayay may jirin, laakiin marka loo eego Putin wuxuu aaminsanaa khatar kasta oo kaga soo noqonaysa arrintan inay u bareerayaan oo ay u qalanto. balse Putin muu rabin ninkan inuu ku bedesho lacag ama in cunaqabatayn lagaga qaado. wuxuu rabay in dib loogu soo daayo sirdoonadiisa Mareykanku haysto. Putin oo bilowgiisii ahaa sirdoon Ruusha imikana madaxweyne ah ayaa dareemayay in mas'uuliyadda ka saaran tahay soo deynta sirdoonada Ruushka ee la haysto. ninkan markan uu rabo inuu soo daayo waxaa lagu magacaabaa Victor Booth, kaasoo sida rasmiga ah ahaa nin hubka ka ganacsada, balse waxaa laga shakisanaa inuu si dhow ula shaqeeyo sirdoonka Ruushka. ilaa 90-aadkiina ninkan wuxuu hub ka iibiyey dowlado iyo ururo xag jira oo Afrikaan iyo Asian iskugu jira, waana halka ay ugu baxday naanaysta ah Merchant of Death amaba ganacsadaha geerida. Russian arms dealer Victor Bout, also known as the Merchant of Death. The Merchant of Death. The famed Merchant of Death. Mareykankuna ninkan sanado badan ay raadinayeen ilaa ay ku qabteen howlgal ka dhacay sanadkii 2008 dalka Thailand. haddaba ninkan wuxuu xabsiga ku qaatay dhowr sano oo ka mid ah xukunkiisa 25 sano ah. markii Putin xidhay ninka dalxiisaha ah, Mareykankana u soo bandhigay inay isweydaarsadaan labadan maxbuus, laakiin Donald Trump uu diiday markiiba. kadib Putin haddana wuxuu xidhay nin kale oo Mareykana si uu ugu soo bedesho labada maxbuus ninka laga haysto ee sirdoonka ah, laakiin Trump mar labaad haddana uu diiday. qaladka markan Putin uu sameeyay ayaa ahaa inuu doonayay isku bedelashada laba nin oo caadi ah iyo nin hubka ka ganacsada oo sirdoona. laakiin Mareykanka waxaa cadaadis saarayay qoysaskii labada nin ee Ruushku xidhay. mudaharaadyo ayayna sameeyeen, balse cadaadiskaasi Trump kuma qasbin in talaabo laga qaado raggan. Putin ayaa isagu sugayay ilaa xilka uu ka qabsanayay Biden si uu u afduubto qof kale oo saddexaad oo ku qasba Biden in arrintan uu wax ka qabto. haddaba sanadkii 2022 sawirada gabadhii aynu bilowga muuqaalka ku sheegnay ee Brittany Griner oo ku jirta xabsi ku yaala dalka Ruushka ayaa baraha bulshada qabsaday. qaraabadeeda iyo dad badan oo caana ayaana cadaadis ku saaray madaxweyne Biden sidii loo soo deyn lahaa gabadhan. marba marka ka dambeysana dowladda Mareykanka cadaadisku uu ku sii badanayay, waxaana qasab noqotay inay jawaab ka bixiyaan arrintan. markii cadaadisku batay, Joe Biden wuxuu iskugu yeedhay guddiga ammaanka ee qaranka isagoo u sheegay ha dhawaato ama ha fogaato ninkan waynu sii deyn lahayn, waana qasab in hadda aynu sii deyno. haddaba 10 bilood kadib xadhigii gabadhan ee Ruushka, Mareykanku wuxuu ku bedeshay ninkii hubka ka ganacsanayay maxaabiistii laga haystay, iyagoo labada dhinacba ay heleen waxay rabeen. laakiin Putin isagu wuxuu helay faa'iido intaa ka badan, waayo wuxuu helay qorshe shaqaynaya oo uu ku soo deyn karo sirdoon kasta oo laga xidho isagoo afduubanaya dadka caanka ah ee Mareykanka. haddaba markan ninka kale labaad ee ku jira liiska Putin si uu u soo daayo wuxuu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii uu dil geystay. sidaa darteed horaantii 2023 Putin wuxuu xidhay nin kale oo Mareykana. ninkan markan uu xidhay waa wariye ka tirsan wargeyska weyn ee Wall Street Journal. wariyahani wuxuu Ruushka u joogay inuu soo diyaariyo warbixin markii ay saraakiisha Ruushku qabteen oo ku eedeeyeen basaasnimo. isla markiibana wararka xidhitaankiisa ayaa warbaahinta qabsaday. Evan Gershkovich, arrested in Russia, officially designated as wrongfully detained. qaraabadiisa oo ay weheliyaan xubnaha wargeyska uu u shaqaynayay ayaa bilaabay inay u doodaan sii deyntiisa. haddaba dhanka Putin marka la eegayo, isagu uu haystay wixii uu u baahnaa si loogu soo daayo ninka laga haysto, laakiin Mareykanka iyo madaxweynihiisa Biden iyagu waxay kaliya haysteen dhowr hakar oo maxkamadda saaran, kuwaasina kumay filnayn si loogaga bedesho Ruushka ninka wariyaha ee markan la xidhay. sidoo kale dhanka kalena kumay qasbi kareen Mareykanku in Jarmalku soo daayo ninka Ruushka laga haysto ee dilaaga ah. sidaa darteed Biden wuxuu ku qasbanaaday oo uu ka codsaday xulafadiisa reer Yurub inay soo qabqabtaan dhammaanba wixii sirdoon ee Ruushka ee ay heli karayeen waqtigaas. taariikhda marka waa 2022 Mareykankuna wuxuu dhabarka u ritay dhammaanba culaysyadii ka imanayay dagaalka ku socda Ukraine, waayo Yurub markan awood ku filan ma yahayn oo ay ka caawisay Ukraine dagaalka ay kula jirta Ruushka. sidaa darteed Mareykanku wuxuu u sheegay reer Yurub maadaama isaguna uu ka caawinayo dagaalka Ukraine ku socda, iyaguna inay ku qasban yihiin inay ka caawiyaan dhibaatooyinka haysta Mareykanka. ugu horreynna Norway ayaaba xidhay ninkii ugu horreeyay oo ahaa nin cilmi baare ah.
kadibna dalka Slovenia ayaa iyagoon xidhay lamaana isqabay halka dalka Poland uu xidhay nin wariye ah haddaba dhammaanba dadkan la wada qabqabtay dusha sare waxay ka ahaayeen dad caadiya laakiin xaqiiq ahaan dhammaantood waxay ahaayeen sirdoonno ama basaasayaal Ruusha ninka wariyaha oo lagu magacaabi jiray Pablo González isaga waxa lagu qabtay isagoo macluumaad ka gudbinaya mucaaradka Ruushka iyo sidoo kale ciidamada militariga ee Ukraine waxaan macluumaadkaas u gudbinayay sirdoonka Ruushka halka ninka cilmi baadhi uu ahaaba sarkaal ka tirsan sirdoonka Ruushka kaasoo lagu dhex qariyay gobolka Arctic ee dalka Norway laakiin labada lamaane ay isqabay iyagu waxay shaqaynayeen 10 sano iyagoona ahaa sirdoon qarsoon oo Ruushka u shaqaynayay waxayna ku kala sugnaayeen Argentina iyo sidoo kale dalka Slovenia haddaba sirdoonada markan la qabtay ayaa ahaa sirdoonadii loo baahnaa kuwaasoo Putin uu aad u qiimeeyo wixii la weydiiyana uu samayn karay iyaga dartood xulafadan Mareykanka ee reer Yurubna Mareykanka aad bay u caawiyeen maadaama ay soo qabqabteen sirdoonada Putin ogolaanayo si uu ugu bedesho dad kale oo la haysto haddaba heshiiska markan dhacay waxa uu ahaa sirdoonadan dambe la soo qabqabtay Putin wuxuu ku soo bedeshay ama uu ogolaaday inuu ku bedesho dad kale oo fara badan oo Mareykan oo la haystay oo uu ku jiro ninkii wariyaha ee uu shaqaynayay wargeyska weyn ee Wall Street Journal halka dhanka kale dawladda Jarmalka ee Ruushka ninka ka haysatay iyagoo ay ogolaadeen in Ruushka ay kaga bedelanayaan ninkan oo kaliya nin kale oo Ruushku haysto oo Putin ku ahaa mucaaradkiisa ugu weyn ninkan oo magaciisu yahay Alexei Navalny ayaa sanado fara badan waxa uu sameynayay dhaqdhaqaaqyo laga soo horjeeda Putin horena wuxuu uga badbaaday laba isku day dil oo la doonayay lagu shirqoolo kadib intii aan la xidhin kadibna aan loo dirin mid kamid ah xabsiyada ugu arxanka daran ee Ruushka haddaba ninkani markan waxa uu furo aad u muhiim u ahaa mid kamid ah maxaabiis isweydaarsigii ugu weynaa ilaa iyo dagaalkii qabooba ee ka dhex dhacay Ruushka iyo Mareykanka ka hor intii aan la soo sheegin February 2024 in ninkan uu ku dhex dhintay xabsiga Alexei Navalny has died suddenly in prison. Vladimir Putin's most energetic critic Felt unwell after a walk on Friday and lost consciousness. ninka dhintay xaaskiisana waxay saxaafadda ka hor sheegtay iyadoo ilmeynaysa in Putin uu ka dambeeyo in ninkan la shirqoolo ama lagu dhex dilo xabsiga iyo sidoo kale waxyaabo xunxun ee uu geysanayo Putin Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают. We thought that's it. haddaba ninka dhimashadiisa inkastoo xaaladdu ay adkaatay maxaabiistii la isweydaarsanayayna ay adkaadeen laakiin haddana bilo fara badan ay wada xaajood ku jireen Ruushka iyo Mareykanku habeenkii taariikhdu ahayd 1 August 2024 lix diyaaradood ayaa kasoo kala kacay 6 wadan shanta diyaaradood ugu horeeyay waxa saarnaa sirdoonadii Ruushka laga haystay halka diyaaradda lixaadna ay saarnaayeen 16 qof oo Ruushku haystay lixda diyaaradood waxay soo gaadheen airport ku yaala dalka Turkiga labada dhinac ee Mareykanka iyo Ruushkuna waxay isweydaarsadeen maxaabiistoodii Putin wuxuu soo dhaweeyay sirdoonadii laga haystay iyo dadkii loo soo daayay halka Biden iyo waliba hogaamiyaashii Yurubna ay soo dhaweeyeen dadkii laga haystay kuwaasoo kala ahaa dad shacab oo caadiya wariyaal iyo waliba dad kale oo la haystay maxaabiis isweydaarsigaasina waxa uu bilaabmay waqti cusub taasoo dawladaha ay wax caadiya u noqotay inay isweydaarsadaan maxaabiista bilayar kadibna Donald Trump laftarkiisa ayaa ku soo bedeshay ninkii laga haystay Mark Fogel lagu magacaabayay nin hacker oo Ruusha markana daba Ruushku waxa uu haystaa maxaabiis aan sida u sii badnayn laakiin madaxweyne Putin wuxuu aad u doonayaa inuu dadkan soo kordhisto oo marba marka ka dambaysa dad u qabsado waayo wuxuu arkay in arrintan shaqaynayso daba Putin arrintan keligii ma samaynayo dad kale oo fara badan wuxuu ku dhiirigelinayaa inay tallaabooyinkan oo kala qaadaan maadaama la arkay waxaan shaqaynayso waayo sida macluumaadkan sheegayaan dadka Mareykanka la qabsaday aad ay u tir badan yihiin badankana waxay u badan yihiin dad shacab oo iska caadiya iyagoo sidoo kalena lagu qabtay meel qaldan si qaladna loo xidhay dadkan qaar badan oo kamid ah waxa haysta Ruushka laakiin qaar kale ayaa lagu haystaa wadamada kale Cuba Iran China laftarkiisa iyo sidoo kale wadamo kale dadkan qaar badan oo kamid ah sababa loo xidhay waxa weeye inay dawladaha qaar iskaga qaadaan cunno qabatayn qaar kale aan siyaasadeed ba loo qabsaday maxaabiistan la kala qabsanaya waxay cadeynaysaa in adduunku marba marka ka dambaysa uu dana noqonayo qof walbana dantiisa eeganayo si wax loo kala bedesho muuqaalkan halkan ayuu ku eegyahay haddaba haddii markii ugu horeysaadna daawanaysa ay tahay ilaa halkan aad fiidiyoga soo gaadhay waxaan ka codsanaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena channelkana subscribe saara saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin